waxay inoo suur waa barnaamij gaar ah aan maanta ku wareysan doono cabdiraxmaan cabdidoon oo ah qoraa eena ka tirsan xarunta cilmi baarista ee ku taal magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Cabdiraxmaan wuxuu ka tirsan yahay akademiyada afka Soomaali. Cabdiraxmaan marka hore ku soo dhawow Roma iyo telefishinka caalamiga Universal qaybtiisa Talyaaniga. Cabdiraxmaan waxaa jirta dhibaato oo naga haysto xagga af Soomaaliga. haan qato caruurtii halkan ku dhashtay ama ku barbaaraba ama waalidiintaba waxaa jira caruurta af Soomaaliga waxaad moodaa in mantaqaana maxaa lahay ay iloween ama ay ka fogaadeenbo arrintaas soo aragta adigu. bismillah waa run markii dowladda dhexe Soomaaliya ay burburtay qoysas badan ayaa waxay u soo qaxeen dibadda caruur ay la soo qaxeen caruur kalena waxay ku dhalatay dibadda caruurtaas in badan oo kamid ah Soomaaliga kuma hadlaan qaarkood ma fahmaanba waa la iska garan karaa sababaha keenay maxaa yeelay dal burbur ka dhacay dadka xoogaa iska jahwareeri ahaayeen qaxooti ahaayeen in la adkaysto oo la dhowrto dhaqankii iyo afkii iyo hidihii iyo masahlaneyn waqtiyadii hore midda kale banaaninka la yimid lagama helin barigaas fursad ma jirin lagu helo qalab badan oo wax laga barto resources wax laga barto in la helo ma fududayn taasa waxay keentay marka in caruurtii dibadaha soo aaday af Soomaali aysan aqoon inta badan midda kale caruurta sidoodaba meesha ay joogaan afka looga hadla ayaa u fudud ay ku hadlaan waxaa kaloo haddana soo weheliya caruurta subaxii iskuulka guriga ka baxaan dugsiyada aadan iskuul aadan waxay soo noqdaan galabtii waqti dambe casharaadkii ka shaqaystaan waqtiga u soo haraa waa yar yahay waalidka ku wada sheekaysan karaan waalidka laftarkiisa waa iska mashquulsana taasa waxay keentay marka fursadii caruurta ay ku hadlayaan luqadda ama afka meeshaas ay joogaan ayaa ka badan waqtiga iyo fursadda ay ku hadli karaan afka Soomaaliga taas marka waxay dhalisay dhowr sano kadib in qayladaan ay bilaabato waalidiinta ay dareemaan shakhsiyaad kale oo badan oo dadaalay oo ama qoraalaha soo saaraano ama ololayaal kale ha qaadaane ayaa bilowday marka waxa muhiimka ah dareenka horta inuu jiro dareenka hadduu jiro xal waa la heli karaa laakiin dareenka inuu jiro hadda waa la wada arkay waxaa dhashay ururo waaweyn waxaa dhashay jaaliyadaha dibadaha degan qaar ka mid ah waxay fureen iskuulaad lagu barto afka ururada waaweyn aan sheegay waxaa ka mid ah naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed Somali Pen la yiraahdo oo sanadii 1996 lagu aasaasay magaalada London ururadaas waaweyn aan sheegay ka mid ah naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed oo loo yaqaano Somali Pen kana tirsan Pen International waxaa lagu aasaasay sanadkii 1996 magaalada London fikirka asaaska waxaa iska lahaa Dr. Maxamed Daahir Afrax oo kaashaday aqoon-yahano Soomaaliyeed kadibna naadigii waxaa loo raray xaruntiisa waxay noqotay magaalada Djibouti naadigu wuxuu ka howlgalaa dhammaan geeska Afrika Soomaalida ay degan tahay fikir kale oo waxaa sii dhashay markaas oo ka dhashay naadigaas qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed oo ah in la abuuro maxaa yeelay naadiga waxyaabaha ugu waaweyn oo loo aasaasay waxay tahay inuu xarun ama hooy u noqdo inta wax qorta inta wax akhrisa inta wax urisa maansooyin hadii aan la sheekooyin hadii aan lahaydba laakiin in la helo hay'ad dhowrta kabtana afka Soomaaliga in la helo ayaa aad muhiim inay u tahay loo arkay sanadii 2012 shirweynihii lagu qabtay Djibouti ee 40 guuradii ka soo wareegtay qoraalka fartan Soomaaliga ayaa waxaa halkaas loogu dhawaaqay akademiyad loogu magac daray akademiyad goboleedka afka Soomaaliga oo dhammaan gobolkaas geeska Afrika oo Soomaalidu ay degto
wada daboolaya. marka labada hay-adood oo hadda ugu waaweyn waa labadaas hay-adood naadiga qalinleyda hal abuurka Soomaaliyeed iyo akademiyada goboleedka afka Soomaaliyeed. waxaana jira hay-ado kale oo badan oo ayagana meelahaas ka jira. Cabdiraxmaan in haddaan isla noqdo xagga caruurta iyo waalidiintiisaba waxaa jira waalidiinta caruurta markay kasoo baxaan iskuulka afka lasoo qoro ama ha noqoto ingiriiska ama talyaaniga wax kasta soo noqdo ay si fiican soo bartaan markay guriga yimaadeen waalidiintii waxay kula hadlayaan afkii ay soo bari afka qaldan oo aan Soomaali oo aan Talyaani ama Ingiriis ahayn waxa ku jahwareer ku caruurtii taas maxaa loo xalin karaa warinta dhibkaas dhib jira weey dhibkaas waa dhib jira meelo badan laga dareemay waalidiintu waxa wanaagsan guriga ilmaha markay joogaan inay af Soomaali kula hadlaan waalid waxa jira aaminsan caruurteedu waxaan rabaa af Soomaali waa baran doonaane kan wadankan looga hadlo inay ku hadlayaan ila roon aniga ay yiraahdaan laakiin waxa la ogaaday oo cilmi baarisyo badan oo la sameeyay lagu ogaaday caruurta ku hadasha hal af ka badan inay caruurta af Soomaali ku hadlaan aad muhiim u tahay hal af ka badan caruurta ku hadasha waxay u fududeynaysaa waxbarashadooda kaleeto sidaas darteed sidaas si la eg waxay kor u qaadaysaa garaadkooda maskaxeed iyada laftirkeeda marka waxa wanaagsan caruurta guriga markay joogaan af Soomaali inay ku hadlaan waalidka inuu af Soomaali kula hadlo mid kale hadii waalidka af Soomaali oo fiican oo tayo leh aan caruurta u baro caruurta af Soomaali baran karaan markaas oo kaleeto waalidka hadii afka markuu hadayba dhacdaba inuu kula hadlo afkaas localka oo meesha la joogo ama afka Jarmalka ama afka Ingiriiska ama afka Talyaaniga ama afka Swedishka ugu yaraan waalidku waa inuu si fiican u yaqaan afkaas meesha lagu hadlo uusan ka hadlaynin caruurta sidaas si lamid ah waxaa jirta caruurta markay iskuulaadka tagaan waxaa la yiraahdaa dadka iskuulaadka ka shaqeeya macallimiin hada ama maamul hada waxay yiraahdaan caruurta sida ugu dhawaaqaan luqadda meeshaas la jooga iskuulka way qaldan tahay pronunciation waxa la yiraahdo way qaldan tahay taasoo ah caruurtu inay ka soo bartaan guriga taas waalidiinta mas'uulka ah maanta dhan caruurta markii aad la hadlayso hadii aad tiraahdo buluug oo midabka buluuga ah caruurtina ay u bartaan buluug iskuulka markay tagaan buluug waa laakiin marka iskuulka markay tagaan buluug ay leeyihiin waa eray gabi ahaanba ka gedisan midkii loogu talagalo buluuga ahaa ay ugu talagal maxay ma fahmayaan buluug wax la yiraahdo marka saas la mid ah waxa erayo kale fara badan oo noocaas oo kale taajira marka waalidka waxa mar walba kula talinaa in caruurta ay kula hadlaan af Soomaali afkan kale way baranayaan waxa kala cawdaan wadanka dhax kale waxa kale jira waxa way wadankan Talyaaniga aan deganahay wax badan ku aragno maxaa rabnay in caruurta ama markay guriyaha ku socdaan aga cadaan aslaan ama kale Talyaaniga wuxuu leeyahay maxaa la scalzi waxa waaye aga cadaan waaye markii watan waxa la kaalso waaye dadkii waalidii waxa leeyahay war kaalsada soo qaado taasan soo wax la kala rantaas waa tii aan sheegaynay caruurta in ay kula hadlaan nasidar erayo waxa jirta Soomaali laga isticmaalo oo asalkooda usan ahayn Soomaali oo laakiin aksi ah sida loo isticmaalay taa hadda leedahay kaleeto Italy marka la joogo scalzi aga cadaan waay annaga laakiin scalzi waxa waaye sigsaanta la gashtaan u naqaano caruurta hadii saas u bartaan iskuulkiin kaasay ku tagayaan marka watii aan ka hadlaynay ereyada qaar wax badan laga ma qaban karo oo maxay yeelay Soomaalida isticmaasho eray Soomaaliya iska noqday ereyga maxay yiraahdaa la caadiyan loo adeegsado marka inta ugu badan oo waalidku uu dadaali karo inuu dadaala fiican Soomaali uu kula hadla caruurta qaar waalidiinta qaarkood oo nala soo xiriir waxay yiraahdaan caruurta xataa hadda Soomaali kula hadasho kugula ma hadlayaan waxaa jira marka saan hore u sheegay cilmi baaris badan lagu sameeyay arrintan waxaa jira tips la siiyo tusaalooyin waalidiinta la siiyo sidii caruurta ugu fududaan lahayd af Soomaali inay ku hadlaan waxaa kamid ah caruurta mar walba af Soomaali kula hadla isku day inaan soo gelin luqad kaleeto
inta ugu badan aad dadaali karta kaasoo dadaal carruurta weliba markii ay yar yihiin oo weliba sanad ay ka yar yihiin xataa oo isleeyahay waxba ma fahmayaan soon inaa kula hadashaa fiican Soomaaliya bartan ajikanka carruurta maskaxdooda waa record oo aad maaragtay wax u duubi karo sensibility marka mar walba kula hadal haddii ay kugu jawaabaan hadda meeshaan hadda aan joogno waa Italy hadday kugu jawaabaan af Talyaani intii ay ku sheegeen oo af Soomaali ay ku sheeg adiga way qabanayaan maskaxdooda way qabanaysaa tusaale ahaan iskuul oo aad markuu ka soo noqday weydii hay iskuulka maanta maxaa ku soo dhigateen ama maxaa qabateen marka qaarkood banaanka loo kaxeeyaa way ciyaaraan Soomaa maxaa qabateen intii hadduu af Talyaani kugu sheegay ama af Ingiriis kugu sheegay intii uu sheegay oo af Soomaali ah ha saas isaas samaysan Soomaa marka maskaxdiisu waa qabanaysaa mar walba marka xigta waxa laga yaabaa intii inuu kugu sheego af Soomaali waxa kale oo wanaagsan sidii hadda aan sheegay waagii hore waxyaabaha afka laga barta cajaladaha buwaagta ma badnayn Soomaaliga hadda laakiin aad u badan yihiin meel walba yaalaan waxa wanaagsan carruurta in loo soo iibiyo ma taqaanaa lagala shaqeeyo markii shaqada guriga ama homework marka laga shaqeynayo qayb iyadana la siiyaa wanaagsan markuu ka dhamaado kale qayb la siiyo oo maaragtay af Soomaaliga ah carruurta waxyaabaha aad qaban og yihiin xataa dadka waaweyn waxaa ka mid ah suugaanta gabayada heesaha waxyaabaha aad xasuusan karta maskaxdaada mar walba ku haraayo waxaa ka mid ah suugaantaas gabayadiisii maxamed cabdulla xasan xilligiisii iyo kuwii ka horreeyay Soomaalida hadda waa wada hayaan marka waa wax maskaxda bini aadan ku dhagawaa maxaa yeelay rhythm uu leeyahay suu dhacayo ayaa u fududaynaya carruurta inay dhegeystaan marka heesaha gabayada baraamburada waxyaabaha suugaanta ku saabsan waxaa kaloo jira sheeko carruureedka Soomaalida waxay leedahay sheekooyin sheeko hidood ah oo aad iyo aad u wanaagsan aadna u fara badan carruurta in loogu sheekeeyaa wanaagsan idina saas oo kaleeto waagii hore dalkii markii la joogay waxaa jiray barxadda guriga ardaa af Soomaali lagu yiraahdaa in la fariisto oo hooyo ama ayeeyo carruurta ay u sheekayso hadda salootada ama fadhiga guriga ayaa bedelay meeshii ardayga carruurta waa in la helo saacad halkaas la fariisto oo la wada sheekaysto in la helo carruurta haddaysan af Soomaali ku hadal dhibaatooyin ay la kulmayaan jirta waalidkii iyaga maxaa ka mid ah xiriirkii waalidka iyo carruurta ka dhaxeeya meesha ka baxaya waalidka kaliya maaha xiriirkii ka dhaxeeyay iyaga iyo ehelkii guud ayayaan leenahay awooyaalaan leenahay abtiyaal adeeryaal ilma adeero ilma abtiyaal xiriir ballaaran qoyska Soomaalida waa ballaaran yahay kaasaa soo yaraana maxaa yeelay carruurtaada oo halkan joogta haddaan walaalanahay anay adiga iyo carruurteydana ay joogto Jarmalka tusaale ahaan labadaas carruur isma fahmayaan hadday isla hadlayaan Soomaa marka waxba isku ma aha marka waxa wanaagsan carruurta in lagu dadaal af Soomaali inay ku hadlaan waxa kale jira hadda guryaha carruurta markay noo joogaan hadda tira waxa soo qab ama waxaan sameey way ku fahmayaan wixina waa sameynayaan laakiin wada sheekaysiga meesha ka maqan in waxa sheegayso dhan ay fahmaan ayagana ay kula sheekaysan karaan kaasa meesha ka maqan marka haddii taas ay dhacdo carruurta markay soo koraan mararka qaarkood dhibaatooyin ay la kulmaan haddaad wada sheekaysataan adii ilmahaada waxaad garanaysaa markiiba dhibaato yar haddii kusoo kordho markiiba garanaysaa laakiin haddaad wada sheekaysanin markay dhibaatada faraha ka baxdo oo ay maaragtay dhibka sii weynaada kadib aa ogaan doontaa marka waxaa wanaagsan in xiriirkaas uu jiro mar walbaba la adkeeyo wanaagsan afkana waa wax ugu muhiimsan oo laisku afgaran karo marka waran haddii waalidintii ay doonayeen inay ku hadlaan ayaga afka oo carruurta isku sabro aan doonayn in ay ku hadlaan afka Soomaali ku waran kuwaas waa dhibaato waxa la yiraahdo male waa un kulleyba in lagu dadaalo waalidka oo mar walba la xusuusiyo carruurtii iyo waalidkaba laakiin waalidka waxa markaas mas'uuliyadda ha yeeshaane in la xusuusiyo in afka muhiim uu yahay lagu hadlo haddana carruurtii
soomaaliyeed oo qurbaha joogtay number badan waalidiinta rabtan inaan u sheegano number badan oo kamid ah af soomaaliga kor u soo kacaya marka canugaada ayaa meesha loogu tegin waa inta kale af soomaaliga baranayaan aad baad manstaa kaas oo cabdiraxmaan maxamed cabdidoon oo ah qoraa ka mid ah akademiyada afka soomaali kana shaqeeya ama ana ka tirsan xarunta loo yaqaano cilmi baarista ee ku taal magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Cabdiraxmaan aad baad masantahay adiga badan